Waxaa inta badan la yaab leh Neyow in wax la isweydiiyo ma xumo. Waxaan meeshan iyo maanta inta la wadaagayaa arrimo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya. Waa raadiyaha ama TV-ga All Media 74 TV. Taariikhduna waxay ku beegan tahay 6 bisha September sanadka 2020. Saaxiibayaal, ku soo dhawaada arrimaha aan maanta inkaga haya ama aragtidayda aan ka dhiibanayo. Marka hore, haddii aan saxaabta la wadaago, waxaa maalmahan aad arkaysaan siyaasadda carkirin ee ka taagan gudaha Soomaaliya. Waa siyaasad aan af iyo irad lahayn oo hadda aan micnaheedana la fahmi karin, sina lagu micnayni karin. Waayo markii aan fiirino muddo 30 iyo dhowr cisho ah, waxaa xukuumaddii xilka ay kala noqdeen golaha baarlamaanka mudane Xasan Cali Khayre. Xilkii wuxuu maqan yahay ilaa muddo 30 iyo dhowr beri ah. Marka xilkii 31 beri uu maqan yahay, haddana waxaa meesha ka muuqata in xukuumad la'aan iyo maamul xumo ay ka muuqato wadankii, maadaama xilkaas uu iska lahaa beel awood qaybsi. Wadanka Soomaaliya waxaa lagu qaybsaday awood qaybsi xubnaha sida madaxda sare, madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha. Waa qaybsi awoodii lagu qaybsan lahaa mid ka mid ah ayaa meesha ka maqan muddo 30 iyo dhowr beri ah. Haddee sidaasi limid ahna haddana maamulka ama dowladda federaalka ah maamul wanaagsan ma ahan. Waa midkan arkaysaan oo imtixaanka shalay ardayda laga qaaday caasimadda dhan oo 20 iyo dhowr kun oo arday ay ka soo galayso, hal cunug oo baas xitaa ku jirin, oo hataa lambar 2 3 hataa 4 mid soo galayso jirin. hal gobol oo caasimadii aan ahayn oo lambar 2 iyo 2 iyo 3 dhalinyaro ardayda ay baasteen. Marka kulley madaxweynaha hadduu maadaama wadanka dhan madaxweyne ka yahay, shalan xilka loo dhiibtay oo meesha laga doortay ay ahayd caasimadda magaalada Soomaaliya Muqdisho. Cidii soo doortana aysan qabiil ama jibsinta u ka soo jeedo midna ay shalay soo dooranin, oo caasimadda cidda degneed oo soo dooratay ay maantana meesha kaliya xukum ay tahay caasimadda Soomaaliya. Waxay ficneed kulley inuu adduunka magac xumo meel ay ka raacayso ayaa jirta. Waxaa ficneed inuu magaciisa ilaashado madaxweynaha oo uu meeshii uu hadda maamulka kaliya oo hadda maanta dowladda federaalka ay xukumayso waa Muqdisho. Halka meesha oo shalay laga doortay waa Muqdisho, halka uu maanta xukumo ama uu taqliid ka qaadana waa Muqdisho. Gobolada kale waad aragtaan in gobol kastaba uu madaxweyne ama nin isku sheegay madaxweyne goboleed uu nin walba meel u goostay, oo heer hataa ay taagan tahay ciidamada militariga in laga soo saaro ma ahane wax wada hadal oo galayna ma laha ay madaxda qaarkeed ku hadlayaan. Marka madaxweyne Farmaajo waxaan dhihi lahaa halka meesha ee shalay laga soo doortay haddana uu asaga xukunkiisa maanta ka taliyo waa magaalada Muqdisho. beesha ayada ahayd oo shalay ku soo dooratay maantana aad xukumaysay oo haddana sida ayada raalli ku ahayd in xukuumad la'aan xukuumadeedii oo la riday iyo eebba ku roonay haddana imtixaanka ardayda oo qof kasta uu islahaa caasimadda lambar 1 iyo lambar 2 lambar 3 caasimad ay noqon doontaa, haddana ay midna soo galin. waa nasiib xumo. Marka anigoon hadda hadal shacabka Soomaaliyeed aan ku horta 100% anigu waxaan taageersanahay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad wada Soomaali ah. Wadankana uu Soomaalida la wada leeyahay, caasimadda iyo gobol kastana Soomaalida la isla wada leeyahay. balse haddii ficilada qaar ay dowladda federaalka wada ay sii wado, waxaan dhihi karaa burburka Soomaaliya ee Siyaad Barre ayaa dib loogu laaban 1990 baa dib loogu laaban karaa. waxaan dhihi lahaa dowladda federaalka xubnaha u soo sareeya wax kasta oo dhaleeca ama shacabka dib ficilada xumaa iyo faraqabiilka dib u tusi kara waa in ay iska ilaalisaa.
dowladda maaragtay mas-uulka maanta aduu ku saaran yahay, laakiinse haddii shacabkii aad dowladda u ahayd maanta ay kaa hor imaadaan, waxaad ogaataa in dowlad ay shacabka uu shacabka yahay. Shacabka haddii maanta kaa hor imaadaanna hal maalin aad meelaas ka talin karta aysan jirin. mudane madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa laga doonayaa in uu maaragtay shacabka Soomaaliyeed gobol iyo caasimad meel kasta ay ku nool yihiin uu cadaalad falaa kana ilaaliyaa shacabka si allaalay iyo sidii maaragtay shacabka uu ku kicin. hadda maaragtay wadanka mucaarad baa jira, mucaarad mid shisheeye iyo mid sokeeyaba wuu jiraa, balse shacabka waxay dowladda nabad iyo nolol bay shacabka hadda ka hor weli indhahooda kama hor imaadeen. gaar ahaan shacabweynaha xamar maaragtay dowladda federaalka ay saaka ka taliso baa inay il gaar ah u fiiriso, haddii tahay imtixaanka ardayda iyo haddii tahay siyaasadda maamulka iyo maqaamka magaalada. waa meesha ay in maaragtay iska ilaalisay isheeda ayay ahayd, balse hadda waxaan arkaa in maaragtay ay shacabka Soomaaliyeed uu galaya maaragtay ficil xun oo ah in magaalada caasimad ahayd 25 arday ka badan ay maaragtay imtixaanka ugu fadhiisteen yuusan jirin hal arday oo kamid ah oo maanta imtixaanka 1 ama 2 iyo 3 soo galay ahna caasimadda dhan oo Soomaaliya. meesha ay dowlad goboleedyada maaragtay 2000 ama 1000 wax ka yar ay ardayda imtixaan u fadhiisteen caasimadda xamar waxaa fadhiistay maaragtay imtixaanka ka qayb galay 2022 oo arday ah. marka waxaan u baaqayaa shacabka in ay la shaqeeyaan dowladdoodana ay ka dambeeyaan, balse muhiimka koowaad wuxuu saaran yahay dowladda federaalka inay cadaalad ku maamusho shacabka ama wadanka waxa waaye gobol iyo caasimad. marka insha Allah maanta waxaan la wadaagayaa warkaas soo kooban. fikir ahaanteydana aad iyo aad baan ugu xumaaday, laakiinse xumaanta aan ka xumaanayana maahan in aan wax ama dowladda ama wax ku dhilaysanay, laakiin dhaliilo aan isleeyahay way imaan karaan baa halkaas iga muuqda. waxaan leeyahay dowladda federaalka xilka kan ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya waa in ay dhaliilaha iyo maaragtay ilaaliyaan midnimada iyo mideynta shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed kasta ay joogaan caasimad iyo degmana iyo heer gobol iyo heer waxa waaye maamul goboleed iyo heer federaalna dowladda federaalka ee mas'uulka ah. midda kale waxaa si aad loo fiirinaya ama isha loogu hayaa dowladda federaalka ee xukuumadda u sarreysa maaragtay dowladda federaalka u sarreysa qorshaha ay leedahay ama qayb shaqada ay leedahay federaalka iyo shaqada ay leedahay dowlad goboleedka si kala duwan ayaa loo ilaalinayaa, maadaama dowladda federaalka ay tahay dowladda wadanka dhan ka talisay. haddii shaqadii ay lahayd dowladda federaalka ah dhaliilihii koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo cadaalad darro laga dareema, meeshaas waxaa ka imaan kara burbur iyo qabyaalad in dib loogu laabto. dadkana dowladda ay doonayeen midaysan ee wadanka midaysa ee cadaalad noqoto ee maaragtay dadka sinaan muujiso, haddii laga dareemo wax noocaas ah waa xaalad aad u xun ayaan dhihi karaa. boqolkiiba boqol waxaan kaga rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdoodaba insha Allah guul baan u rajaynaynaa. waxaan ilaahay ka baryaynaa in ay maaragtay dib u laabanin dowladnimada hore u socoto. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.